howlgalka ballaaran ee ciidamada difaaca Puntland ay kula jiraan kooxda Daacish ee ku sugan buuraha caalamiskaad ayaa galay marxalad adag iyadoo dagaaladii u dambeeyay ay muujinayaan in ciidamada maamulka Puntland ay kala wareegeen deegaano badan oo ku yaala dhulka buuraha gobolka Bari. Dagaalkii gelinkii dambe ee xalay ka dhacay buuraha caalamiskaad ayaa ahaa mid weeraradii ugu xooganaa ee toddobaadii la soo dhaafay kadib dagaalyahano ka tirsan kooxda Daacish ay isku dayeen in ay weerar ku qaadaan fariisimo ay ku sugnaayeen ciidamada daraawiishta Puntland gaar ahaan fariisimo ay maamusho guutada Afmeer. Ciidamada Puntland ayaa la sheegay inay si aad uga hortageen weerarkaasi waxaana halkaasi ka dhacay dagaal foolka-fool ah oo la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan. Wararka hordhaca ayaa waxa ay tilmaamayaan in kooxda weerarka soo qaaday lagu gaarsiiyay jab xoogan inkastoo maamulka Puntland aysan weli si rasmi ah ka soo bixin ama shaacin qasaaraha guud ee dagaalkaasi ka dhashay. inta la xaqiijiyay 4 askari oo ka tirsan ciidamada Puntland ayaa ku shahiiday dagaalka halka tiro kale oo dhaawac ah lagu daadgureeyay xarumo caafimaad oo ciidamadu leeyihiin. dhaawacyada qaar ayaa lagu dabiibayaa goobaha caafimaadka ku dhow jiida hore ee dagaalka. howlgalka ka socda buuraha caalamiskaad ayaa muddo bilooyin ah socday waxaana maamulka Puntland uu kordhiyay dhaqdhaqaaqyada military si looga hortago kooxda Daacish deegaanada ay kaga dhuumaaleysanayaan buurahaasi. buuraha caalamiskaad ayaa ah dhul adag oo leh godad iyo marino badan ay kooxaha hubeysan u adeegsadaan gabaad iyo sidoo kale dhaqdhaqaaq qarsoodi ah taas oo mararka qaar adkeysa howlgallada ciidamada. si kastaba ciidamada Puntland ayaa bilihii dambe kordhiyay weerarada iyo howlgallada qorsheysan ee lagu burburinayo fariisimaha kooxdaasi Daacish. sidoo kale dagaalada soo noqday ayaa saameyn ku yeeshay dhaqdhaqaaqii dadka deegaanka iyadoo cabsi amni ay ka jirto qaybo kamid ah dhulka buuraleyda ah. dadka deegaanka ayaa marar badan taageero u muujiyay ciidamada dagaalka kula jira kooxda Daacish iyagoona rajo weyn ka qaba in howlgalka uu soo afjaro khatarta kooxdaasi ay ku hayso dadka deegaanka. bishan May oo gabagaba ah ugu yaraan 5 weerar iyo iska horimaad oo kala duwan ayaa ka dhacay fariisimaha ciidamada Puntland iyo goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada kooxda Daacish. dagaaladan ayaa sabab dhimasho dhaawac oo labada dhinac soo kala gaaray iyadoona halkaasi jab xoogan lagu gaarsiiyay sidoo kalena goobo muhiim ah laga qabsaday kooxda Daacish oo ku dhumaaleysanaysa buuraha caalamiskaad iyadoo wararka qaar ay sheegayaan in kooxda Daacish ay lumisay xubno muhiim ah iyo sidoo kale saanad military inta ay socdeen howlgallada. saraakiil ka tirsan ciidamada Puntland ayaa hor u sheegay in ujeedka howlgalka uu yahay in gebi ahaanba laga ciribtiro kooxda Daacish ee ku sugan buuraha gobolka Bari isla markaana la sugo amniga deegaanada ay muddo dheer ka jiraan dagaalada iyo weerarada qorsheysan.